إيران أي ساكي كلوك الله دي إسرائيل دقيمة أبد إسرائيل أي لكل من قرحي إيو دقيمة قسار النف إيو مال بجيستي سيدا سوحا شيغي إسلا إسرائيل وهران جب كود قرسنجري balse xaaladda ayaa faraha ka baxday Iran waxay duqeysay isbitaal ku yaala koonfurta Israa'iil dhimasho iyo dhaawac culus ayaa lagu soo warramayaa shacabka Israa'iil oo dhulka hoostiisa isku dagaalayo waa yeelo ku qanfacaya dhulka hoostiisa mukeef iyo marwaxada haba sheegin waa goob cariiri ah oo looga gambanayo bambooyinka askari Mareykan oo ka badbaaday duqeynta xarunta Al-Udeyd ee Qatar ayaa sheegaya in wixii ku dhacay ay ahayn wax sahlan. Well, words can't even describe the amount of energy that is released by these missiles. Trump xal wuxuu sheegay xabajoojin labada dhinac ah kadib markii weerar lagu qaaday saldhigyo ay leeyihiin Mareykanka oo ku yaalo dalka Iraq iyo Qatar. xabajoojinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Iran ayaa durbaba cakiran. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa ku eedeeyay Iran inay ku xadgudubtay xabajoojinta wuxuuna wacad ku maray duqeymo xoogan oo ay kaga jawaabayaan. Iran ayaa ka digtay gardarro kasta oo kale waxa laga kulmi doonaa jawaab adag oo waqtigeeda ku haboon. haddaba markaad eegto labadani dal hadallada ay isdhaafsanayaan ma aha hadallo sahlan. xabajoojin in xilligan hadda lagu baaqo weliba iyadoo xalay xarumaha militariga ee Mareykanka la beegsado waa arrin shuucac ku jirto. dagaalkan ma sii socon doonaa mise wadamada waaweyn sida Korea, Ruushka iyo Shiinaha ayaa soo gali doona oo waxa halkaas ka dhalan kara dagaalka saddexaad ee adduunka.